أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحكلا أبو نعيم أبو زكريا بن مالك بن عائذ حافظكي ويناء الأندلس أردنتي بش الشعبان سنة كصدح بقول يلح يسقاشن isagoo mimbarka saaran oo khudbadda jimcaha jeedinaya oo markaas inta laga soo dejiyey oo nin kale khudbadda jeediyey ka wariyey inuu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam caloosha hooyadiis 9 bilood oo kaamil ah ku jiray ayaduna ayaan wax xanuun ah sheegan iyo wax calool xanuun ahba iyo dabayl caloosha uga samaysantay midna iyo waxa ay haweenka uurka lihi la kulmaanba waxayna hooyadiis sallallahu alayhi wa alihi wasallam oran jirtay wallahi ma ra'aytu min akhaffa minhu wala a'zama barakatan wallahi ma aanan arag uurka khafiifsan mana aanan arag mid ka baraka badan waa intaas warkiisu uurka khafiifka ah iyo uurka culayska ah siduu isku waafajiyey Abu Nucaym videogii midkan ka horeeyay ayay nagu soo martay intaas ay uurka lahayd laga bilaabo markay 3 maalmood uur lahayd ilaa ay wiilkeeda sallallahu alayhi wa alihi wasallam ka dhasho waxay deganayd oo ay ku dhashay guriga ninkeeda السيد عبد الله بن عبد المطلب عليه السلام oo aad uga jeedid videogan ahna guriga hurdiga ah oo ay ku dhigan tahay مكتبة المكرمة مكتبة مكة المكرمة كنا يالا شعب بني هاشم وكبيغان مسجدك الباب كيسة باب السلام